dhagaystayaal ku soo dhawaada meel kasta aad joogtaan barnaamij yar oo kooban oo kaga hadli doono gobolka Sool gaar ahaan saxaafadda ka howlgasho gobolka Sool iyo sirdoonka Somaliland maxaa ka dhaxeeya waa aniga oo ah Yiin Maxamed Diiriye waxaan daqiiqad yar oo kooban isdul taagi doonaa xaaladda gobolka Sool indhaweytolo gobolka Sool waxaa ka jirtay dhibaato aad u fara badan taasoo la soo daristay xaalad amni xumo hase ahaatee taa waxaa uga daran wariyeyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood ayaa waxa ay la kulmaan cagajugleyn iyo xadhig joogtaa taana waxaa ku haya maamulka magaalada ka jira hase ahaatee taa waxaa u sahla in wariyeyaasha la xidho loona cagajugleeyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir taa marka laga soo gudbo wariyeyaal dadku ay u yaqaanaan inay si daacad u shaqeeyaan haddana ku milmay siyaasadda gobolka Sool iyo maamulka Somaliland ayaa dadka basaasa kuna dhex jira sirdoonka Somaliland ee gobolka Sool haddaba daqiiqado kooban waxaan isdul taagi doonaa wariyaha lagu magacaabo Mawlid Ismaaciil Haradigeed oo ah wariye ka howlgala magaalada Laascaanood ayaa wuxuu basaasaa dhammaan wariyeyaasha ka shaqeeya gobolka Sool iyo shacab weynaha gobolka Sool wuxuu u shaqeyn jiray muddo 3 sano ah TV-ga Sam News TV kabacdi uu ka tagay shaqadii uu ku hayay TV-gaas hadda waxa uu ka shaqeeyaa TV-ga Ariel TV la yiraahdo taasoo uu shaqo geeyay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir wuxuu qaataa $300 mushahar ahaan oo loo siiyo basaasida dadka iyo shacabka iyo wariyeyaasha ku nool magaalada Laascaanood dadku waxay u yaqaanaan wariye sax ah maaha dadka badan ee lagu xidhay magaalada Laascaanood waxa dhammaantood soo basaasa waa Mawlid Haradigeed oo ah wariye aad in badan ku aragteen TV-yada Soomaaliga afka Soomaaliga ku hadla haddaba xogo badan iyo warbixino badan oo ka diyaarinay wariyahaas ayaa dhammaantoodba waxay cadeynayaan inuu u shaqeeyo sirdoonka Somaliland iyagoo indhaweydba uu ku dhex milmay siyaasadda markii uu la weydiiyay su'aalaha qaarna uu yiri gudoomiyaha gobolka Sool ayaan u hayaa dokumentiyo iyo agab sir oo kale haddaba wariyeyaasha gobolka Sool oo nin badan la xidhiidhnay ayaa waxay noo sheegeen inuu Mawlid Haradigeed uu ka shaqeeyo sirdoonka Somaliland hase ahaatee maysan dhicin inuu noqdo wariye sax ah oo shacabka u adeega sidii loogu baahnaa mar aanu isku daynay inuu shacabka dhammaantood aanu wax ka weydiino ayaa dhammaantood waxay noo xaqiijiyeen inuu Mawlid Haradigeed uu caadeystay inuu soo basaaso hooyooyinka iyo saxafiyiinta gobolka Sool ha ugu dambayso caaqil Axmed Hoolif fiidiyoogii laga soo duubayay wiilkii yar ka soo duubay inkastoo inaan magaciisa sheegayn hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Laascaanood waxaana waaran u soo jaray in lagu xidhayo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir waxaana ka dambeeyay soona basaasay Mawlid Haradigeed oo ah suxufi ka howlgala magaalada Laascaanood warbixinta oo dhammaystiran iyo cadeymahana waanu soo gudbinaynaa dhammaan waxaan u cadeynaynaa shacab weynaha ku nool magaalada Laascaanood iyo dadka daneeya gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in ay ka digtoonaadaan wariyaha lagu magacaabo Mawlid Haradigeed oo ah saxaafi ka howlgala gobolka Sool indhaweynna lagu yaqaanay TV-ga Ariel TV oo hadda uu ka howlgalo uuna shaqo geeyay gudoomiyaha gobolka Sool wixii warbixinaya ka soo kordha iyo cadeymahana gadaal baan ka soo sheegi doonaa Yiin Maxamed Diiriye oo idin leh dhageysi haboon